federaalka uma ihi madaxweyne reer Jubbaland ba madaxweyne aan u noqonayo hadday doortaan marka taas waan wada hadlaynaa xilligeedan ka hadli doona مسؤوليات culus baa taala aad baan ugu faraxsan inaan mar kale ilaahay ugu sabay inaan soo sharaxo iyadoo aan dareemay leedahay waxa aan ka hadlay iyo waxaan isu sharaxay waxaan ka shaqeynaa ay tahay waajibaad inaan guto aan doonayo way deegaankan isaad ogtahay waa deegaan ka duwan deegaanada kale waa meel Soomaaliya ay ku degan tahay waa meel cadawgeedu shabaabkan ay tahay meesha u ah saldhigga u ah sida daraadeed u baahan in juhdi badan iyo dadaal badan iyo wax badan oo dheeriya laga qabto marka taasaa sababaysa aad baan ugu faraxsan ilaahay ugu sabay inaan mar kale soo sharaxo madasha wadashada qaranka oo aad ka qayb gali jirtay tii ugu dambeysay aad ka soo tagtay waxaad arki jirtay ama aad goobjoog ka ahayd iyada oo muddo kordhin la qaadanay adiga maxaad muddo kordhin ku diiday oo aad doorasho aad dastuurka ay diidaya waayo mandate-ku hadduu dhamaado qofku aan iska wada joogno aan ku darsano waxa jawaab kaaga filan warqadda wasaaradda arrimaha guduhu ay soo saartay ahayd 2023 August buu ku ekaa hadduu nala joogana sharci buu leeyahay hadduu naga maqayna sharcigu ka dhacaya taasaa sababaysa marka sharci darradu ma sameynayso haddii lagu doorto oo ay federaalka diidaan adigu maxaad sameyn lahayd federaalka uma ihi madaxweyne reer Jubbaland ba madaxweyne aan u noqonayo hadday doortaan marka taas waan wada hadlaynaa xilligeedan ka hadli doona waxay leeyihiin Axmed Madoobe wuxuu albaabada u furay musharaxiin oo Kismaayo jooga bal musharaxiintaas qaarkood waan aragnay inay shahaadooyinka qaateen qaarkoodna aadan qaadan maxaad ku baaqi lahayd qof wal oo Soomaali ah hal lagu tartamo halkaas gudidu haddii la magacaabay sharci baa magacaabay waxa ay maanta iga saxeexayeen hadda ay ugu horeyso qoraalkeeda waxaan hore ogaa ma ahayn shuruudaha iyo waxay ka hadlayaan iyaga iskale gudidu sharciga aan u hoggaansano 75 xildhibaan ee Jubbaland baarlamaanka saddexaad ah go'aankay wax ku doortaan taageerisa boqolkiiba boqol baan taageeraya aad waa mahadsan